halkan aan taagannahay oo u dhow agagaarka dugsiga Sheekh Bashiir amaba gargaar dahabshiil oo ay qaar ka mid ah baraha bulshada lagu soo qoray inuu halkan uu ka dhacay goor dhaweyd qarax ayaa ciidanka booliiska Soomaaliland war qoraal ah oo ay ka soo saareen waxa ay ku beeniyeen inaanay jirin haba yaraatee wax qaraxa oo halkaasi ka dhacay qoraalka ciidanka booliiska Soomaaliland ay soo saareenna waxa uu haasidan taliska guud ee ciidamada booliiska Jamhuuriyadda Soomaaliland waxa uu cadeynayaa inaanay jirin wax qaraxa oo ka dhacay gudaha magaalada Hargeysa ee caasimadda Soomaaliland waxaanu bulshada u cadeynayaa in agagaarka dahabshiil gargaar agteeda banjarle amaba goomayste ku yaala oo banjarinaya taayir ay wax isaga uun ku koobani oo saameeyay qarax yar dhaceen kaas oo aan ahayn wax dibadda kaga yimi waxaana dhaawac fudud ka soo gaaray banjarlihii iyo qof la shaqaynayay oo xaaladooda caafimaad oo fudud lagu dabiibayo cisbitaalka guud ee Hargeysa haddaba ciidamada booliiska Soomaaliland waxa ay baaritaan ku hayaan wixii sababay dhacdadani goobtaasi ka dhacday taliska guud ee ciidanka booliiska Soomaaliland waxa uu digniin u dirayaa cid kasta oo ku hawlan fidinta warar propaganda ah gaar ahaan kuwa beenta qoraya iyo kuwa qaadanayaba xafiiska warbaahinta ciidanka booliiska Soomaaliland ayaa warkaasi qoraalka ah lagu sheegay hadda oo laga soo saaray wixii warara ee ka soo kordhana waxaad kala socon doontaan Universal TV Abdirashiid Cabdiwahaab Xuseen Universal Hargeysa